إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. noloshu haddii la rabo in la fahmo waa nolol ku salaysan imtixaan. waxaa jirta maalan aan odhan karna alfalsafa alcaalamiya marka la isku wada daro jawaanibtay kala gedisan oo dhan marka ay isku dayaan inay sharxaan nolosha guud ee bini aadamka iyo qaabku u nooliyey dhib baa jirta falaasafo kasta caqligooda daalisa oo ay sharxi kari waayaan maxaa dunida sharku u jooga waxaan leenahay dunida tan inay mashkiladani ka jirto oo ay qaabkan u taallo oo waxaanoo dhibi yaalliin aslan baa loogu qastiyey waayo waxaa loogu talagalay in la isku itixaamo dunida iyo qaab dhismeedkeedu waa sida ugu fiican ee la isu itixaamo. ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaanu ku tilmaamaya alxayaati addunya bisamaawaatiha wa ardiha cilalka ka dambeeya inuu ka mid yahay in basharka lagu itixaamo. waa ka alle qur-aanku leh subxaanahu wa tacaala wahuwa aladii khalaqa asamaawaati waalarda fi 6 ayaam وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا الابتلاء أو الامتحان إن لا يسكو اتحامه أي سمدا إي عركا إي دولكا إي وحا نودم يودسي وحن لأن وحا علاقة إنسان كي الزمن ككدحية جيري إي النولل إي تطور كان ترى بدل لو بني آدم كمريو ودمانتي وحا الله طلق الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وحين لنا إلهي سبحانه وتعالى إنسان كوحو كردقي متفهم يكون كانوا كنوا لي وسميعا بصيرا بكردقي إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاجا نبتليه بإلهي سبحانه وتعالى. نلاش فهم كذا حقيقي هي وحي هي إنه قفكو قرطه حياة الدنيا إنه أتشوغو إن لا اتحامي إن تكون راحيسان يصير تكون برواقي ستيع ماها نلاش الدنيا وحا لو جوغا ee loogu nool yahay inaad tahay qof imtixaan ku jira imtixaankaasi natiijadiisuna maalinta qiyaame inaad la kulmayso oo aad ka mid noqon doonto markaasi kuwa janno loo dareeriyo ama aad ka mid noqon doonto kuwa cadaab loo dareeriyo. qofka bini aadamka waxa alle subxaanahu wa tacaala uu noloshiisa ka yeelay qof dareemi kara dhibta gaajada xanuunka murugada baqaha tiiraanyada werwerka waxaasoo dhan inuu dareemo. waxa kaloo nolosha laga yeelay waxaasoo dhan wax ku sababi kara inuu baqo tiiraanyoodo werwero murugoodo waxaasoo dhan wixii sababi lahaana isaga waxa laga dhigay inuu qaabiliya inuu leeyahay waxaas inuu dareemo. kawnka dhammaantiina waxa laga buuxiyey waxyaabahaasi wixii qofka ku sababi lahaa inuu dareemo. waxaan leenahay markaa shakhsiga bini aadamkii qaabka alla uu abuuray iyo kawnka uu ku dhex nool yahay qaabka loo abuuray iyo xidhiidhka ka dhexeeya qofka bini aadamka iyo nolosha dhammaanteed waa qaab in la itixaamo qofka bini aadamka. حياة الإنسان بين لنا مركه هذين ربنا فهم الحياة الدنيا من أولها إلى آخرها وامتحان ومشقة. لقد خلقنا الإنسان في كبد يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كادحا فملاقيه لا بد من كبد ولا بد من كدح. هدان وردنا نصوك وبوحا لنا فهم الحياة و eray iska kooban baynu ku sharxi karnaa nolosha tan dhammaanteed macno kaloo ay samaynaysaa ma jirto allahuma ila alikhtibaar walimtixaan inay tahay mooyaane waa tajriba ibtilaa'iya wejiga keliya ee uu qofku imtixaankaasi kaga gudbaano waa hadday mashkilad tahay inaynu sabarka iyo waxaan ula yimaado hadday nimcada iyo barwaaqada iyo badhaadhaha iyo kan tahayna inuu shukri la yimaado. waxaan leenahay marka qofka saabirka cala alibtilaa'aat almu'lima
أما الشاكر كقوة على الابتلاءات الممتعة قفك شكر نقية هي قفك صبر يلا بضبا ابتلاء كان وو كسيبتا مركي نمعادا أما بلدس أي ولي ما دان وجهي حقيقي للربين يوجد جوابا سيد الدرادين وحنا نذكرنا ابتلاءات dadku way ka warwaraan waayo noloshaanay saani u fahmin laakiin waxaan leenahay waxa dhici karta ibtilaagu inuu u yimaadaba lirifca in qofka la kor yeelo daraaddeed si uu qofku u gaadho aqsa darajaat alkamaal albashari wa aanu si kale ku gaadhi karin ila alibtilaa mooyaane idan waxaan leenahay balaagu wuxuu u yimaadaa lirifca in la kor yeelo waxaan odhan karnaa ibtilaaga iyo imtixaanku waxay u kala badan yihiin siday dadka diintoodu u kala badan tahay ashaddu nnaasi balaana alanbiyaa uma asaalixuun in kaana axaduhum layubtalaa bilfaqr xataa maa yajid axaduhum ila alcabaa'ati alatii yaxwiiha wain kaana axaduhum layafraxu bilbalaa kamaa yafrax axadukum bilrakhaa wuxuu nebigu tilmaamaya calayhi الsalaatu wasalaam in dadka ugu imtixaanka badan la ambiyada yihiin dabeetana saalixiintu ay ku xigto midkood buu nebigu leeyahay saalixiintaasi faqri baa lagu imtixaamaa ilaa ayaanu waxba ka haysanaynin cabaada yare u huwan yahay mooyaane wax kaloo haysta aanay jirin laakiin buu nebigu ku tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam balaaga iyagu waxay ugu farxayaan sida midkiin idinka uu nimcada ugu farxo sida xoolaha iyo adduunkan iyo waxaan ugu farxdaan ay dadka saalixiinta ibtilaa'aadkan ay ugu farxayaan buu nebigu ku tilmaamaya بل أحاديث الصحيحة النبي كسر أرتي وحكمده إنه النبي كنت المامي إن عظم الجزاء مع عظم البلاء أبا المركة وينيدي سبينا يكون حرنتهي بلد وينيدي وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم ولما النبي يقول عليه الصلاة والسلام قوم هدون الله تعالى سبحانه وتعالى إلهي ويتحامه فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط عند الرالي نقطنا رالي بولي عند عروتانا عرى بولي والعياذ بالله هلنا النبي عليه الصلاة والسلام مركز بوحو تلماما يا قفك مؤمنك إن الرفعة ونقن كرته مسألة تانية وكان النبي عليه الصلاة والسلام حديث كالترمذي ورينا يا حسنين يا وحليه إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا هدي قفك قال له خير لا دونيو مشكلة دي سبا أدونك الله ظهر مريا نبتي سأدونك كقاطع دي خير الله ولا ربا قفك كان أدونك انتو تشوغو نبتي سودان قاطع وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة قال له شركا لا دونينا ذنوبتيسا dunida laguma abaalmariyo waa loo kaydiyaa si bar qura loogu wada oofiyo booska naareeda sare uu leeyahay uu gaaro waxaan leenahay markaas ibtilaaga qofka mu'minka ah ku dhaca iyo ibtilaaga qofka gaalka ah ku dhaca ama labada mashkiladada kala qabsata wajiye kala gadisan bay leeyihiin kow ibtilaaga qofka mu'minkii wuxuu yimaadaa lirifca wa tathhiir in kor loogu qaado ama in dunuubta lagaga daahiriyaa waxa kale oo ibtilaagu dadka muuminiinta ugu dhaca litamxiis in iyaga sufuuftooda la kala sooco kooda fiican iyo kooda xun la kala ogaado ma kana Allah liyadhara almu'minina ala ma antum alayhi hatta yamiza alkhabitha min at-tayyib ayadkaasi Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu ku tilmaamaya dadka muuminiinta sidan ay yihiin in aan lagaga tagaynin إلا كلا صار دون الخبيث وطيب لكن إلهي وحليه وما كان الله ليطلعكم على الغيب غيب كان اللي يدين موقع سينيو وانا اللي يدين كلا صاريا محال لغو كلا صاريا وآيات كي تعقيب كواها أحد يعني ابتلاءات كي مشكلات كاكو كلا بحيسة مركي مشكلات دو أمضو أي كشو أيال لوغاني يا كيدا منافقة يا كيدا إمامكو كدب كيهي
keeda wax kale ku lifaaqnaayeen iyo keedii khayrkuun waday mushkiladdaa dadka lagu kala ogaado ama haddii la iska wada nimcaysan iyo la wada socdo dadku ma kala garto lama kala garto idan haddii la rabo mujtamac in tamxiis lagu sameeyo in la kala soco waa laabudda min ibtilaa'aat وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون آيات كاسو دمي وحي شيغيا كو وحين لنا للرفعة ثانيا وحين لنا للتطهير ثالثا وحين لنا ابتلاء قفك مؤمن كاكل دعا ولتمحيص صفوفهم سلو كلا صارو صفوفتون لا 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 لا